السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. halkani waa kanaalka Somali Islamic TV. waxaan idin soo gudbinayaa maanta 5 xikam ah oo tusaalooyin iyo mahmaah ah kuna salaysan cilmiga shareecada iyo aqoon kastaba. ka koobaadi waa حكمka adhaha ama mahmaahda dhaha lawla alilmu lakana annaasu kalbahaa'imi. cilmi iyo aqoon haddaysan jirin dadku waxay la mid noqon lahaayeen xoolaha oo kale. bahaa'imtu waa waxa aanan hadlin, ancaamta sida xoolaha ariga caadiga ah, geela iyo lo'da iyo ariga, wax kastoo ma yeedhaan baa bahaa'im loo yaqaanaa. حكمka labaadi waa حكمka dhaha alcilmu bilaa camalin ka shajarin bilaa thamar. cilmi aanan camal wadani waa geed bilaa midho ah. cilmiga iyo aqoonta aad baratay ee shareecadu waxay u baahan tahay ku camal fal. haddaad cilmi iyo aqoon leedahay oo aadan ku camal falin waxay la mid tahay geed aanan midho lahayn. waxaa tusaalaha saddexaad aynu maanta soo gudbinayna uu yahay aafatul cilmi annisyaan. cilmiga aafadiisa iyo dhibkiisu waa ilowga. aafada ku dhacda cilmiga iyo dhibkiisu waa ilowga iyo hilmaanka. mahmaahda afraadi waxay tahay ama tusaalaha afraadi alcilmu fi siqari kanaqshi cala alxajar. cilmiga lagu bartaa yaraanta wuxuu la mid yahay dhagax la naqshadeeyey ama la xardhay. dhagax in la naqshadeeyo la xardho wax lagu qoraayay sida looga taatirayo way adag tahay. cilmiga yaraanta lagu bartay in la ilaawo ama la dayacay waa adag yahay. mahmaahda shanaad u dambaysa waa ta dhahda udlub alcilma min almahdi ila allaxdi. dalab oo cilmiga ka dalab barashadiisa marka gogosha dhalato lagu dhigo laga bilaabo ilaa inta lixdiga iyo meydka iyo xabaasha lagu dhigayo. macnaheedu ay tahay cilmigu waqti ma leh, waqti u dhammaadana ma leh. cilmigana lama dhameeyo, lama gabagabeeyo ee adigoo weli cilmigii dalbaya geeriyood. laga bilaabo maalintaad dhalato ee gogosha lagu dhigo ilaa intaad qabriga ka galayso, inta noloshaada u dhaxaysa cilmiga dalab. cilmiga lama gabagabeeyo. waa 5 tusaale oo ina siinaya cilmiga wacnaantiisa, faa'iidadiisa iyo wanaagiisa. waa 5 tusaale oo ina siinaya ama inagu boorinaya cilmiga shareecada inaynu baranno. waa 5 tusaale oo qofkii ku dhaqmaa runtii wax badan uu ka bedelayso habdhaqankiisa cilmiga shareecada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.